waxaan ku suganahay hoteelka Jazeera ee magaalada Muqdisho waxaa maanta halkan si rasmi uga furmaya shir ballaaran oo ay yeelanayaan siyaasiyiinta mucaaradka ah ee dhaliisan hanaanka maamul ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. shirkan ayaa waxaa ka qayb galaya madaxweynayaal hore, ra'iisul wasaarayaal hore, gudoomiyaal hore ee baarlamaan iyo xubno hore xilal kala duwan uga soo qabtay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya kuwaas oo isugu jira xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka, wasiiro hore iyo siyaasiyiin mucaarad ah. shirka ayaa la filayaa in goordhow uu furmo waxaana markaasi ka mid ah mas'uuliyiinta ka qayb galaya madaxweynayaasha hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed sidoo kale ra'iisul wasaarayaasha hore ee dalka Xasan Cali Khayre, Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake, Cabdi Faarax Shirdoon Saacid, Maxamed Xuseen Rooble iyo sidoo kale qaar ka mid ah gudoomiyaashii baarlamaanka gaar ahaan madaxweynaha hore ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo mar baarlamaanka federaalka soo hogaamiyay, Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo sidoo kale soo noqday gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya iyo siyaasiyiin kale. shirkan ayaa la filayaa in muddo maalmo ah halkan uu ka socdo isla markaana looga arinsado qodobo kala duwan oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha hortobinta leh ee la xiriira doorashooyinka amniga iyo guud ahaan xaaladda waddanka. kala soco telefishinka Universal xaaladaha halkan ka soo kordha iyadoo halkan ay soo gaarayaan hadba xubno ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ah ee shirarkan halkan uga qayb galaya.